ciidanka asluubta Soomaaliyeed qaybta Galmudug ayaa maantay magaalada Gaalkacyo ugu dabaaldegay sanad guuradii 54aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed maadaama magaalada Gaalkacyo maanta si weyn looga dareemay sanad guuradii 54aad ee aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed munaasabad ka dhacday xabsiga dhexe ee ciidanka asluubta uu ku leeyahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada kan gobolka Mudug xildhibaan ka tirsan maamulka Galmudug iyo sidoo kale waxaa goobjoog ahaa taliyaha ciidanka asluubta qaybta Galmudug gaashaanle sare Cabdi Cilmi Xuseen Dowdowle iyo waliba sidoo kale taliyaha xabsiga dhexe ee ciidanka asluubta qaybta Galmudug ee magaalada Gaalkacyo gaashaanle dhexe Siciid Maxamuud Sheekh Nuur waxaana ugu horan goobta munaasabadu ka dhacaysay hadalka furay taliyaha ciidanka asluubta qaybta Galmudug gaashaanle sare Cabdi Cilmi Xuseen Dowdowle oo sheegay in maanta hambalyo ay u dirayaan ciidanka asluubta ee qaybta Galmudug iyo guud ahaan ciidamada asluubta ee Soomaaliyeed imaatanka ka soo qayb galka xafladda aad soo qayb gasheen waxaan rabnaa ciidanka asluubta waxa la aasaasay 1970kii maanta kaleeto bisha February 22 maantay waa maalintaas ay noonta anaga noogu asaysan maalin farxadeed iyo maalin faysto iyo maalintaas aska ciidanka asluubta waxaa ugu asaasay ciidanka asluubta ciidan 300 gaarahaya waxaa asaasay in la yiraahdo Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo jaran ah waxaan ilaa iyo haddana sidii socotaa haddana anaga maantay faystadan waxay tahay reer Galmudug waa faystadii ugu horeysay oo Galmudug laga dhigo oo ciidanka asluubta ka dhigaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay idino ciidankan quruxda badan u jeedo oo qalabkiisii iyo qorshihiisii iyo nidaamkiisa u dhammaystiran yihiin waxay u diyaar yihiin inay dawladda Galmudug ka shaqeeyaan inay shaqadii loogu talagalay oo loo idinaday inay qabtaan waxaan rabnaa annaguna inaan haddii Ilaahay ku run yahay idinkuna aad u garab istaagtaan waxaan rabaa inaan si gaar ah u xuso taliyaha Siciid Macallin Maxamuud oo haddii Ilaahay ku run yahay in badan meeshaan u soo dhabar adeegay oo soo joogay oo ku soo hayay oo la dhihi karo si yar iyo si weynba waxaa lagu dayacay dadweynaha anagu raggan la shaqeeyo ku dayacnay tababarkan ciidanku ka soo baxayay intay soo baxayeen waa ninka habeenkii u dhalmanayay maalinka u dhahayay subaxdii u kala hayay waxaan rabnaa in la mariyo mudnaanta uu leeyahay waxaan kala u mahad celinaynaa dadka deegaanka oo dhan oo na garab istaagnaa oo nala shaqaynayay oo na siinayay oo noo loogayay oo noo qarinayay oo noo qeexayay si walba noo garab taagnaa dhanka kale waxaa si wada jira goobta uga hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay iyagoona hambalyo u diray ciidamada asluubta sanad guurada 54aad ee markii ka soo wareegtay aasaaskii markii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed anay munaasabada tan aadka u quruxda badan oo ah inaan maanta indhaheenu ay qabteen wax aad u qurux badan oo aan filayn runtii ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa ciidan kamid ah ciidamada qaranku leeyahay ee dastuuriga ah ee uu qorayo dastuurka Soomaaliya waa ciidan laf dhabar u ah qarannimada iyo dawladnimada dalka sida la wada og yahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa ay leeyihiin shaqo loogu talagalay oo tilmaamayo sharciga lagu asaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ciidanka asluubtu runtii waa ciidan laf dhabar ah annagu ka garsoor ahaan agooma ayaan ahayn runtii waxa waaye sida aad wada ogtihiinba ciidanka asluubtu waa ciidanka garsoorka sida gaarka ah ula shaqeeya dadka idinku farxaya dadka ugu horeeya ayaan ku jirnaa oo taasiiskiina iyo asaaskiina iyo maanta inaan maaragtay in soo hor istaagno ay u tahay maalin kale waxaa si gooni in ku hambalyeynaya ciidanka saaqaadka oo curdunka oo ka abuurmay gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo oo baahi weyn loo qabay waxa leenahay intii ka soo shaqeysay inta tababaratay inta u adkaystay waxa leenahay waa mahadsantihiin maanta anaga farxad gooni ayay noo tahay runtii de waxaan isku haynaa shaqooyinkii
asluubta iyo midii booliiska iyo amniga dhammaan waa isku haynay maxaabiistii intaasoo sana ahaynay maanta waxaan u helnay gacantii ciddii naga gacan sii laheyd oo shaqadaas laheyd waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan helno ciidan asluub ka abuurmay gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo runtii waxaan leenahay dee u diyaar garooba garabka naga maqnaa baa tihiin diyaar garoobgii tababar fiicana qaadateen si fiicana la idin carbiyey waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow nagala wareegi doontaan idinku gacan sii doono maxaabiista ku xiran degmada gaalkacyo iyo dhammaan gobolka galmudug ku xiran inaan maanta la wareegi doontiin la idina tababaray waxaa leenahay kusoo dhowaada maanta ku sugan oo aan sugu nimid oo ay tahay sanad guuridii 54aad xilligii aasaaskii ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxay ku hambalyeynaa shaqada culus ee dalka iyo dadka iyo diinta aad u qabateen saaka warqabtaan ciidanka asluubta waxay ka mid yihiin ciidamada afarta ah ee ciidamada qalabka sida la yiraahdo maadaama ciidamada qalabka sida ay ka mid yihiin waxay tahay haddana xubinta xagga dishibiliinka iyo aadaabta loogu talagalay dadka dawladooda ay xumaadeen inay dhaqan celisaan oo dad fiican ka soo saartaan oo ay noqdaan ummadda kuwa ugu fiican oo ugu qiimaha badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno si gaar ah waxay annaga maanta noo tahay maalin weyn maadaama ay tahay maalintii koowaad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay tababar intay halkan ku dhamaystaan ay haddana faystadii ka qayb qaataan galmudug waxay noog tahay farxad labaad intaa ka bacdi halkan maanta waxaa lagu soo bandhigay runtii juhdigii dheeraa oo la soo galay oo afarta bilood qaatay meeshaan inay ka soo baxeen ciidan tayo leh oo ay u didaaleen macallimiintii iyo maamulkii ka shaqaynayay ayagana waa u mahadcelinaya guurada 54aad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo halkan maanta aan xafladeedna u joogdo xafladaas waxay ka dhacaysaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah dhammaan waa hambalyeynayna qaasatan midda ka dhacaysa galmudug difacadii ugu horeysay iyo maalintii ugu horeysay burbur kadib ayay maanta dhalatay in maxaan ku iraahdaa aan xafladaas sanad guuradaas 54aad in aan maanta lagu qabto halkan nasiib baan u yeelanay waxaan idin leenahay sanad guuro wanaagsan waxaan leenahay sanad guuradeeda kale ilaahay caafimaad iyo cimri iyo xayaato wanaagsan iyo cibaado suba ilaahay aan ugu gaarsiiyaan leenahay xafladan waa xaflad weyn runtii aad u qurux badan baahi weynna loo qabay in ciidan asluubeed uu ka abuurmo galmudug farxad bay noo tahay madaxweynaheena dawladda galmudug uu og yahay ninna ilmihiisa iyo baahidiisa looma tilmaamo taliyaha ciidanka asluubta waa og yahay waa ninkii albaabkan noo furay asagana u tilmaami mayno baahida ciidankan iyo waxa ay u baahan yihiin dad wax loo tilmaamo ma ahan ciidankii intii loogu talagalay in laga soo saaro oo ahayd gaada kacayaarka iyo isla jaanqaadka iyo asluubta in la baro xeerarka asluubta iyo kulli waa lagu guuleystay waxaan u malaynayaa markii labaad weey oo xafladana ka soo qayb galay ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug maxamuud goore oo hambalyo u diray ciidamada asluubta qaybta galmudug iyo ciidamada Soomaaliyeed ee asluubta qaybahooda kala duwan saaka waa maalin weyn mas'uuliyiinta iga horeysa ka hadashay wasaanad guuradii 54aad ciidanka asluubta waxa kaliya nala gudbaan waxa weeye maalmihii aan tababarka u xiraynay ciidankan baan wixii aan isku sheegnay inaan isku hambalyeeyno isfarna wixii waajib ah oo waajib qaran ah ugu horreyn waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo salaan diiran oo idinkaga wado madaxweynaha dawladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo madaxda sare galmudug salaanka bacdigeed magaca ciidanka asluubta wuxuu ku dhan yahay asluubta
waxa la askariga aan ku fakirin inuu dalka madax ka noqdo askari ma wax ka xiga qofka askariga markuu askari noqdo inuu wadankan madax ka noqdo ma jirto waxay ku xiran tahay nasiibkiisa iyo kartidiisa mideeda kale askarigu waa astaanta qaranka waxa la markii dal la qiimeynayo waxa la fiiriyaa askarigiisa haddaad aragtay askari dhiiran nadaafad ka muuqato taxaddar ka muuqdo qoriga si fiican u haysta dhiiran waxaad qiimeynaysaa inta ka dambaysaana inay sidaas oo kale tahay dalka lagu ma degdego cadawgiisu sahankiisu markay arkaan waa cabsadaan haddaad aragtay askari jacdadsan iska hogan dismoraala waxaad qiimeynaysaa waxa inta ka dambaysaana inay sidaas oo kale tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo taliyaha ciidanka asluubta ee galmudug qaasatan waxaan rabaa si gaar ah in asagana ugu mahad celiyo taliya xigeenka Siciid Macalin Maxamuud ana taliyaha xabsiga weyn oo runtii intii hawshan socotay si weyn lafdhabar ugu ahaa oo aan dhihi karna runtiis la'aantiis taliyaha ciidankuna hawshan kuma guuleysteen wasaaradda cadaaladuna kuma guuleysateen aad iyo aad waxaan leenahay waajibkiisu gutay dhammaan waajibkooday guteen maxamed muxidiin saxan soxo 5 Somali TV galkacyo Redsi Hospital idib gacanta sabab waxaad sheegtaa nolosha kuma fahmin madax fuunto isbitaalka Redsi waa isbitaalka ugu horeeya ee wadnaha oo dalkeena laga furo waa ogahay afkaday arwaa kaasi diidhe waa isbitaalka lagu kalsoonida badan yahay daweynta iyo qalliimada wadnaha xaaduga tagay wadnaha daciifa batariyay galihayaan asaasida Cabdibila orodada ka qayb galaysa fakatax hal baa loo helay xanuunada wadnaha aadar iyo tahmaha soo ku heeray Redsi waxa uu meel saaray cunaha dhagaha iyo sanka Dr. Bishaara jooga maad ka wada see ku ogaatay yaa kale meel saari kara دكتور محمد شيخ محمود دكتور بشار waxa uu leeyahay khibrad in ka badan 45 sano yaa dood ka qaba xataa qalliinka guud Redsi Hospital ma kuugu dara iga si qalliimada iyo daweynta cudurrada haweenka Redsi yaa lagu hubaa waa isbitaalka ugu horeeya been kuma sheegin taas si fiican ayuu u qalabaysan yahay aqoonuna waa ku duugan tahay Redsi Hospital haddaan hal aad kan aadina nasiibkiis Redsi Hospital waxa uu ku yaalaa degmada Hodanka soo horjeedka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda ama kala xiriir nambarka gaaban ee 98 88 yaa nawada ma xal loo fadhiya